السلام عليكم. هدي أدونا سينا وحكوغا تو ودمدا ugu dhulka yar caalamka. Muuqaalkan kooban waxaanu kaga hadlaynaa tobanka wadan ee ugu badka yar adduunka. Inagoo ka soo bilaabi doona kaalinta tobnaad kuna joojin doona kaalinta koowaad. kaalinta tobnaad dowladda Malta. Malta waa dowlad ka kooban 3 jasiiradood oo dhaca badweynta Mediterranean Ocean. waxaana jasiiradaha lagu magacaabaa Comino, Gozo iyo Malta oo ah jasiiradda ugu weyn, isla markaana loogu magacdaray dowladda Malta. badka guud ee Malta waa 316 kilomitir square, waxaana ku nool dad lagu qiyaasay 450,000 oo qof. kaalinta sagaalaad dowladda Maldives. Maldives waa dowlad ka kooban ilaa 185 jasiiradood oo dhaca badweynta Indian Ocean. badka guud ee jasiiradaha Maldives waa 300 kilomitir square, waxaana ku nool 390,000 oo qof. kaalinta sideedaad Saint Kitts and Nevis. waa dowlad ka kooban 2 jasiiradood, waxaana dhacdaa inta u dhaxaysa labada Ameerika. badka guud ee dowladdani wuxuu gaadhayaa 261 kilomitir square, waxaana ku nool 750,000 oo qof. kaalinta toddobaad jasiiradda Marshall. waa dowlad ka kooban 100 jasiiradood oo dhaca badweynta Pacific Ocean, gaar ahaan inta u dhaxaysa gobolka Hawaii ee Maraykanka iyo qaaradda Australia. badka guud ee jasiiradda Marshall waa 181 kilomitir square, waxaana ku nool 53,000 oo qof. kaalinta lixaad Liechtenstein. waa dowlad dhacda xuduudka wadamada Switzerland iyo Austria ee qaaradda Yurub. badka guud ee dowladdani wuxuu gaadhayaa 160 kilomitir square, waxaana ku nool 35,000 oo qof. kaalinta shanaad San Marino. San Marino waa dowlad yar oo dhacda bartamaha waddanka Talyaaniga. badka guud ee San Marino wuxuu gaadhayaa 61 kilomitir square, waxaana ku nool 30,000 oo qof. kaalinta afraad Tuvalu. Tuvalu waa dowlad ka kooban dhowr jasiiradood oo dhaca dhinaca waqooyi bari ee qaaradda Australia. badka guud ee Tuvalu waa 26 kilomitir square, waxaana ku nool 10,000 oo qof. kaalinta saddexaad Jamhuuriyadda Nauru. waa dowlad ka kooban 1 jasiirad oo dhacda agagaarka Tuvalu. badka guud ee jasiiradda Nauru wuxuu gaadhayaa 22 kilomitir square, waxaana ku nool dad lagu qiyaasay 10,000 oo qof. kaalinta labaad Jamhuuriyadda Monaco. Monaco waa jamhuuriyad aad u yar oo dhacda xeebaha waqooyi bari ee waddanka Faransiiska. badka guud ee Monaco waa 2 kilomitir oo keliya, waxaana ku nool 38,000 oo qof. kaalinta koowaad Vatican City State. waa dowlad ku taala Talyaaniga kuna sii dhex taala caasimadda Roma ee waddanka Talyaaniga, waxaana loo aqoonsaday dowladda ugu yar caalamka. badka guud ee Vaticanka waxaa lagu qiyaasaa in ka yar 1 kilomitir, waxaana ku nool 800 oo qof.